dadka xanuunsan waxyaabaha lagu daweyn karo. haddaba qofku hadduu xanuunsado wixii dawo u ahaa qof kastoo xanuunsan, khaasatan waxaan ka hadli doonaa oo iyagana aan sheegi doonaa adkaarta iyo aayaadka iyo awraadda ku qoran kutubaha cilmiga ama diinta ku qoran oo qofku haddii uu suuxo ama uu waalan yahay ama uu sixran yahay ama cudur laga dareemo lagu daweeyo. waxaad ogtihiin nabigeenna suuban sallallahu alayhi wasallam yahuuddu waxay isku dayeen nabi maxamed inay sixraan wa rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam. ilaahay wuxuu soo dejiyey 11 aayadood ama 2 suuradood oo la yiraahdo mucawadatayn, suuratul falaq iyo suuratul naas. labadaas suuradood aayad kamida nabiga markii uu akhriyo in xallad cuqdatun, gunud kamida guntimihii loo xirxiray baa furmaysa baa la yidhi. waa dawo. nabigu markuu jiifanaya waxaad ogtihiin sallallahu alayhi wasallam bikulli leyla labadaa gacmood in sidaa u kulmiyo ayuu ku akhri jiray korkiisa 3 mar suuradda la yidhaha ikhlaaska, suuratul falaq iyo suuratul naas. mucawadataad baa laisku yidhaahdaa. suuradaha 3daaba inta akhriyo oo korkiisa marmari jiray calayhi salaatu wasalaam 3 maruna ku celceli jiray. waa dawo. waxyaabaha dawada waxaa ka mid ah haddii qofku uu yahay qof suuxdimo qaba, ilaahay naguma ridee, dadka suuxdimaha qaba waxa lagu daweynaya ka bilaabaya. qur-aanku sidiisa wuxuu ka dawo badan yahay wax walba oo adduunka laga raadiyo oo dawo laga doono. laakiin marka la soo daalo in la yidhahdo bal qur-aan aan ku dayna maaha, waxa la iskaga fiirinaya ayaan laga dhigin, waa in asaga laga bilaabo wax walbaba. qofku haddii uu yahay qof suuxaya oo cudurka suuxdimaha ilaahay inta qabtaa ka badbaadiye annagana naguma ridee, haddii uu qabo an yu'adana fi uduni lmasruuci 7 7 mar baa horta dhegta looga addimaa. aadaanka bahalka iyo jinka iyo waxa ku jira oo dhan way ku baxayaan weeyaan. waxaa kale oo la sameeya dushiisa 7 maraad 7 mar baa waxaa lagu akhriyaa faatixada. 7 marna faatixada lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa lambarka 3aad 2 suuradood oo hadda aanu soo sheegnay, suuratul naas, qul acuudu birabbi naas iyo suuratul falaq. waxaa kaloo lagu akhriyaa qofka xanuunkaa suuxdimaha iyo dhibka iyo jinka qaba aayad kursigana waa lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa suuradda la yidhaah suuratu wassamaa'i waddaariq, kulligeed oo la dhammaystirayo oo si saxa loo akhrinayo oo qof weese qaba akhrinayo oo qof qalbi wanaagsan akhrinayo ayaa lagu akhriyaa weeyaan. waxaa kaloo lagu akhriyaa suuradda la yidhaahdo suuratul xashri. waa taqaanin qur-aanka kulligeed maaha, laga bilaabo aayadda low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illaah. aayaddaa laga bilaabo ilaa aakhiri suura, ilaa suuradda laga dhammeeyo weeye. taana waa lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa qodobka 7aad qofkaas masruuca ah oo suuxdimaha marmar suuxa dhibkaa qaba, waxyaabaha lagu daweeyo ama xanuunka jinniga qaba waxaa ka mid a suuradda la yidhaha suuratu saafaad ama wasaafaad loo yaqaano. waa suuradaha marka la yidhaha welweltiraha culummadu ay dhahaan wowga inta ka bilowda oo qofka welwelsan lagu akhriyo. suuraddaa laga bilaabo kulligeed maaha, laga bilaabo aayadda 177 fa idaa nasala bisaaxatihim fasaa'a sabaaxu lmundariin. aayaddaa laga bilaabo ilaa suuradda laga dhammeeyo ayaa lagu akhrinayaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa aayad kursiga inta 7 mar la akhriyo oo biyaha tahliisha la yidhaha lagu tufo ayaa qofka lagu rusheeyaa, yafiiqu biidnillaahi buu kitaabku leeyahay. inta haddaad samaydo wax walboo ku jira jin hadduu ahaa, il hadduu ahaa, kulli waa ka dawoobayaa. shayga la yidhaahdo ilaacada ama isha ama qumaynimada soomaalidu ay tidhaahdo waxyaabaha lagu daweeyo waxaa ka mid ah oo ayadana hadda meeshan aan kusii daraynaa haddii qofka looga baqayo. waxaa ka mid ah aayad kursiga iyo faatixada. aayad kursigu waa 1 aayad, faatixaduna
وتضبع آيادات وسيدات آيادات اسكوين صوماها إيا آياد وإيا كادوا الذين لقب اللعبه إلى رماتك الصورة دا انت أصبع لغو أخرياه وأصنوا كد وبيا ويان وحيابها اللغو دويو قفكا حانونسا وحا كمده oo dawada u noqonaya waxa oo qofka ama hadii sixir looga baqayo cudurka la yiraahdo jinka hadii looga baqayo oo kale midalan bismillaahir rahmaanir rahiim ba kamida adkaarta lagu daweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim ba lagu akhriyaa qofku haduu xataa waalan yahay ama cudurka uu qabo dhigta looga akhriyaa markaad ku akhrinayso dhigta ayaad uga akhrinaysaa 41 afartan iyo كومر أياد بسين كل علنيسا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هدو صحدي مقبو هدو مجنون يهي هدو حنون كلقبو أفاق بإذن الله من سرعته من جنونه وسرعه والدة إيا الصحدي مها وكم معناها الرئيسانة يا إن شاء الله هدا انتا كو أخرده وحيابها كلاو اللقود دويو وقفك حنوصان قضبدا اللقود دويو دينت إلهي قرطي أنا هاي فكر بني آدم وحكمده أو كتبها النوغو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بعد آخرين يساب بقول بعد كآخرين يساب بسنك وحد كو آخرين